waxaa la arkay naasuubi oo isku dayaya inuu bariis caydiin cuno gaajo darteedu laakiin hase ahaatee shacabkii ayaa kacay meel walba ninkii waa laga raadiyay ugu dambeyn shacabkii reer Japan waxay ku guuleysteen inay ogaadaan exactly meesha uu qolkaasi ku yaal Enough about me. What's your name? What's your name? Hi. السلام عليكم صاحبيال كوسو دوادا muuqaalkeena maanta waxa ku saabsan yahay nin ay heleen qolyo aad u dhib badan isla mar ahaantaana meel ku xabisay nolosha iyo ciqaabtii uu adkeed mariyay qaawiyay marya ka dhigay ku dhaqaaqay yani wax kasto is yiraahdeen uu xun yahay intaasi oo kaliya kuma heli joojin wiilkan dhammaan daafaha gudaha dalka Japan ayaa si live ah looga daawariyay xaaladiisa saaxiibayaal sidaad badankiin ogsoon tihiinba dalkan lagu leeyahay Japan waa dal ku caan ah TV showyo iyo tartamo runtii aad u la yaab badan waa TV showyo lagu soo bandhigo tartamo runtii maskaxda aan galin oo aad u la yaab badan ayada ay sababtuna tahay dadka oo jecel oo ku raaxaysta inay daawadaan waxyaabaha noocaas oo kale qof meel la duminayo qof balaayo ay ku dhacayso daawadayaashuna ay qoslayaan ay saxabka u tumayaan nimanka ficilada noocaas ku dhaqaaqaya ee TV showyadaasi maamulaya muhiimadoodu waa inay helaan dad fara badan oo ku xidhan iyo dhaqaale fara badan ay ka sameeyaan waxba kama gelin tartamahani dhibtoo marayo haddaba mid ka mid ah shabakadahaasi ka howlgala gudaha dalka Japan ayaa waxa ay sameeyeen show live aha oo cinwaankiisu ahaa Sonso Domshon. What? Sonso Domshon. Bro, what are you talking about, man? ujeedka guud ee showgan ayaa haddaba waxa ahaa qof ayaa la dooraya qofkaasi waxa lagu xareynayaa qol aad u yar qolkaasina waxa meel kasta kaga xidhan oo ku dhajisan kaamirooyin haddaba shakhsigaasi ay doorteen ee qolkaasi ku soo xidheen ayaa waxa uu marayaa ciqaabtii u adkeyd ee ugu dareyd uu noloshiisa abid maro yani ciqaabta uu qofkani marayo waa ciqaab inta badan waxa lagu arkaa yani dhacdooyinka ka dhaca deep web yani haddii aad hore aragtay qolka casaanka يعني قفة من الجسور حرية إفتين مذا بكيسو عسان يهلا جشدية فلال آدو أرجع حفظن بالقولك عيا يعني تبتها سيوك الوية وتبتها سيوك لأونه لكن تيفي شوة عندنا أنا قبل سنين هذا شيء كذا أي نهار عنا يسوي حدعنا فضل هذه قد أول سجل كذا وينها سبسكرايب صار صدق هذه قد أول سجل فيسبوك بيج كنا وهات المرية صدقي توانكن فلوريس فلن فلوس صورة مقال كان لايك صار هراء عنا soo dhawaada saaxiibayaal mar kale sanadu markay ahayd 1989 ayaa TV show caanka ah gudaha dalka Japan waxa uu soo bandhigay tartan ah in qof qol yar lagu xareyn doono muddo badanna uu halkaasi ku dhaxanibnaan doono adigu dadka way u qurxiyeen dad fara badan ayaa tartankii ka soo qayb galay oo mid waliba ku haminayay inuu TV-gaasi ka soo muuqdo oo caan noqdo ugu dambeyn waxa ay doorteen wiil lagu magacaabo Naasubi ayaa arintii ku guuleystay runtii aad ayaan wiilkaasi arintaas ugu farxay maadaama uu tartamayaal fara badan ka soo baxay kaligii guuleysta noqday wiilkan haddaba lagu magacaabo Naasubi ayaa hamigiisa iyo riyooyinkiisu waxay ahaayeen inuu maalin maalmaha kamid uu noqdo shakhsi caan ah jilaa caan ah oo ku caan ah dhinaca aflaamta comedy-ga marka arintan uu TV-gani caanka ay u soo bandhigay fursad weyn ay isaga ahayd oo waxa uu islahaa khalaas sadeed sidaas ayaad caan ku noqotay haddaba ninkii oo faraxsan oo isleh wow kaliya ayaa tartamayaashii laga dhex doortay indhaha inta laga soo xiray ayaa sidii loo waday waxa la dhex istaajiyay qol haddaba qolkii markii la dhex keenay ee indhihii laga furay ayaa la yiri deewa ku kaa qolkii ayuu haddaba ninkii u fiirsaday hareeraha ayuu fiiriyay waa qol iska maran waxyaabo aan badnayn ay dhex yaalaan meel yar oo shawlad dabka uu ka shito meel yar oo ayadna sidoo kale sidii suuli oo kale oo ku yar xaajooniyo suuli caadi ma aha waa isla qolkii dhexdiisa laakiin qolka waxa dhex buuxay jaraa'id ninkii markii uu qolkii haddaba sidaasi u soo galay wixii ugu horeeyay ee lagu amray inuu sameeyo ayaa waxay ahayd in uu gebi ahaan siibo dharkii u xidhnaa mud iyo gacan sidii uu ku dhashay uu yaabay dharka siiba ha dharka siib okay buu siri kolle waa qayb kamid ah tartanka dharkii buu gebi ahaanba iska siibay intaasi kadib maxaa dhacay dharkii markii uu siibay wiilkani lamaanu soconba oo maanu ogeyn in daafaha dunida gebi ahaanba laga daawanayo ninkaasi jirkiisa hase ahaatee asagu ismaanu lahayn si live ah ayaa lagu daawanaya oo waxa maankiisa ku jiray kaamirooyinkan meesha ku xidhan kaliya muuqaal ayay ka duubayaan hadhowna muuqaalkaasi editing ayaa lagu sameyn doonaayo kaliya waxa laga soo googoosan doonaa oo qaybo kamid ah wixii ay kaamiradaasi duubtay oo dee aanu qaawan oo muriga gacan oo sideedaasi ah ummadda lima horgeyn doono balse nasiib darro
qolkaasi gudihiisa wax allaaliya wixii ka dhacaya ee uu ninkaasi samaynayo daafaha dunida ayaa si waadix ah oo live looga daawanayay siiba gudaha dalka Japan. haddaba ninkii waxa lagu yiri jaraa'idadaasi meesha yaala ayaad ka dhex raadinaysaa lambaro bakhtiyaar nasiib ah. bakhtiyaar nasiibkaasina damoor oo dhaqaale badan ka sameeysid bakhtiyaar nasiibka waa marad u dhawaanaysid markii qolkaasi laga fasixi lahaa. yacni tiro cayman oo lacaga ayaa loo sheegay oo lagu yiri lacagtaasi markaad gaadhid meesha waa laga fasixi doonaa. hase ahaatee waa adkaanaysaa inuu bakhtiyaar nasiib ku helo qadarkaasi lacagta loo sheegay oo jaraa'idadu meesha way buuxaan aad ayay u badan yihiin sidaas ayay u rasaysan yihiin. waxaa lagu yiri Nasubi markaad ururisid lacag qadarkeedu ku dhowdahay ilaa 2 milyan oo yuan oo yacni ku dhow meelahaasi $9,000 meesha waa ka bixi doontaa noloshaadana si dabiici ah ayaad u sii wadan doontaa ummadaada dhex geli doontaa. hase ahaatee inta ka sokaysa gudaha qolkaasi ayaad keli ku ahaan doontaa wax bini aadam ahna lama kulmi doontid. yacni waa xabsigu wuu kala duwan yahay oo maxaabiis oo meesha kula kulmi kartaa meesha laakiin waa meel aan cidna la kulmayn. dabeecadda bini aadamkana waxa kamid ah inay isdugsadaan lama kala maarmo wax ayaa la kala faa'iidaa. mararka qaar waa caadi oo inaad kali u fariisatid oo nafshadaada aad waqti la qaadatid oo fikirtid oo yani mararka qaar waa caadi laakiin bilo ummadda ka dhaxbax oo kaliya meel ku go'no arrintii xanuunkeeda wadata. haddaba waxaas leedahay ninkan mar haddii qolka lagu xareeyay qolkaasi wax walba loogu diyaariyay wax allaale wixii asaasiyaad u baahnaa ayaa qolka no sidaas maaha. ninkan qolkii markii lagu xareeyay waxa lagu yiri jaraa'idadaasi bakhtiyaar nasiib ka dhex baadho bakhtiyaar nasiibkaasi wuxuu ku soo saaro heshid ayaa lagu siinaya lagu soo diraya. qolka biyo yaroon badnayn baa u dhex yaal wax raashin haba yaraatee ma dhex yaalaan waa eber. taasi oo ku kaliftay inuu dadaal badan geliyo sidii uu bakhtiyaar nasiibkaasi waxyaabo muhiim ah ugu guuleysan lahaa. ugu dambeyn waa uu dadaalay waqti badan ayuu geliyay xaaladda ay ku xumaatay aad ayuu u gaajooday. ugu dambeyn wuxuu helay haddaba wuxuu ku guuleystay inuu bakhtiyaar nasiib ku helo 5 kiilo oo bariis caydina. Nasubi gaajay ka dhan tahay way ku da'aysaa xaaladii way ku xun tahay meeshana bariis caydina yaal. hase ahaatee bariiskii markii uu la soo baxay uu is yiri karso waxa uu ogaaday inaan dhex oolin haba yaraatee agabkii cuntooyinka lagu karsanayay. arrintii way ku xumaatay xaaladiisu ma wanaagsana waa uu taag daraaday waa uu dhuubnaaday gaajay ka dhan tahay. qolkii yaraa waa uu dhex wareegay si kasta waa uu raadiyay wax allaaliya wuxuu ku farsamaysto sidii bariiskaasi bulxoogay isaga yara karin lahaa. hase ahaatee waa waayay halkaasi oo ka muuqatay dhacdo yacni dadkii aad uga murjisay. waxaa la arkay Nasubi oo isku dayaya inuu bariis caydiin cuno gaajo darteedu. hase ahaatee waa uu kari waayay waa awoodi waayay waa bariis qalalan oo adag oo dabkuba sakaraad ku bisleeyo iyo awoodi karaya. haddaba arrintii markay ku xumaatay gaajadiina ay ku sii adkaysay bariiskiina cuni kari waayay fikrad ayaa maskaxdiisa ku soo dhacday. kartoon yar ayuu bariiskii ku shubay deetana biyo ayuu ku sii shubay meel ayuu dhigay si uu bariiskaasi bal xoogay u rado oo uu yacni sidan uu haatan yahay ooga yara jilco. biyihii ayuu ku shubay kartoonkii iyo bariiskii waa meel isla dhigay waa uu ku daayay ilaa iyo subaxdii dambe ayuu soo laabtay asagoo aad u gaajoonaya balse waa uu ku guuleystay. bariiskii sidii waa uu ka jilcay aad ayuuna ugu farxay runtii sidii ayuuna markii dambe bariiskii xooga yara jilcay. haddaba muddooyinkii uu baadhayay bakhtiyaar nasiibkaasi uu raadinayay balse uu wax faa'iido ah uga helo inta badan waxa ku soo hagaagi jiray waxyaabo aan wax faa'iido ah ugu fadhiin oo uu waxba ku qabsan karin sida inuu ku guuleysto baaskiilna waxa lagu talagalay in banaanada lagu soo socdo. hase ahaatee maadaama uu meesha keli ku ahaa marka qaar baaskiilka uu iska fuulfuuli jiray oo qolka dhexdiisa ayuu iska dhex wadwadan jiray. muddo kadib haddaba si ay ugu dheeldheelaan dadkii qolka ku dhaxayay ee maamulayay ee dusha kala socday kaamarooyinka daawanayay si daawadayaal badan loo helo oo xiisa gooni ah u soo yeesho reactionkiisa iyo falcelintiisana ay u fiiriyaan maadaama uu markii uu bariis ka helay falcelintiisu ahayd mid dadka aad u soo jiidatay. bal waxay yiraahdeen haatana hilib caydin haynu u diro si aynu u fiirino falcelintiisa daawadayaashuna ay aad ugu raaxaystaan daawashadiisa iyo falcelintiisii markii uu helay hilibkii caydinna sidatan ayay ahayd. 想像だに
しなかった。 nasubi waa gaajoonaya hase ahaatee hilibkani waa hilib cayni waa hilib yacni sidiisiya dee ninkan waa bini aadam oo ma ah bahal oo ma cuni karayo hilib sidiisiya waa u fikiray sidii hilibkanna oo u jilcin lahaa oo uga dhigi lahaa mid uu cuni karo ayuu ku fikiray ugu dambeynna maskaxda kusoo dhacday showladii ayuu shiday laakiin ma haysto wax qalaba uu ku kariyo amba uu duldhigo balse wuxuu sameeyey hilibkii ayuu dabka saa u duldhigay waa uu karsamay waa uu ku guuleystay hilibkii inuu cuni karo nasubi xaaladiisii way sii xun tahay 3 bilood ayuu meesha ku jira shakhsiyadiisii ayaa isbedeshay ninkii gebigiisii waa nooc kale ayuu noqday waa shakhsi bini aadamkii ka dhax baxay oo meel gooniya oo asagoo qaawan qolkaasi ku dhex jira cadceedda aana arag muddo 3 bilood ah wax bini aadam ah si toos ah ula sheekaysan yacni xaalad aad u xanuun badan haddaba 3 bilood kadib nasubi waa uu dadaalay waxa uuna adigu ku guuleystay inuu ururiyo bakhtiya nasiibka qiimihii loogu talagalay inuu gaadho kala badhkii ayuu adigu gaadhay waxaa dhacday haddaba maalmaha ka mid ah bakhtiya nasiibkii ururinayay inuu ku guuleysto oo loo soo diro PlayStation dee waa game la ciyaarayo oo inta badan dee caruurtu ay aad ugu farxaan oo lagu ciyaaro yar iyo weynba waa lagu ciyaaraya hase ahaatee PlayStation-kii markii uu helay siduu ugu farxay yacni waxaad moodaa sidii ilmo yar oo markii ugu horreysay PlayStation gacanta loo kaliyo oo kale yacni siduu ugu farxay iyo falcelintiisii la yaab ka ahayd sidaan ay ahayd 当たった。電車でガッ。さらに専用コントローラー付き。 hase ahaatee haddana dhibta jirta ayaa waxay tahay PlayStation-kan suu odhanaya suu ugu ciyaaraya shaashad ayuu u baahan yahay TV ayuu muraayad u baahan yahay dee uu baalkii uu dee PlayStation ku ciyaaro PlayStation qalan oo sidiisa kuma ciyaari karaya dee wax allaali waxa faa'iido ugu fadhida haba yaraatee ma jirto waa PlayStation qalalan oo meeshii taal haddaba saaxiibayaal muddo kadib howlwadanadii TV-ga waxay ka yar shakiyeen inay xaaladiisu sii xumaato oo nafsadiisii yacni khatar noqoto dee ninkii halkaasiba ku geeriyoodo sidaasi awgeed waxay u direen nin dhakhtar ah markii ugu horreysay noloshiisa muddo kadib ayuu shakhsi bini aadam ah oo si toos ugu soo galay uu arkaya hase ahaatee sababta ay dhakhtarkan ugu soo direen maanay ahayn inuu ninka daweeyo in dee wax fiican loo qabto keliya waxay ahayd si uu xaaladiisa caafimaad u hubiyo inay ku dhaceen xanuuno halis ah oo dee uu u dhiman karo inkastoo aanay dee nololba meeshan u oolin oo ninkii shakhsiyan ay dileen maskaxdii ka dileen bini'aadanimadiisii iyo xuquuqihii asaasiga ah ee ninkani u baahnaa ay ka mamnuuceen cuntooyin uu cuni karo ay ka mamnuuceen cabitaano uu cabbi karo ka mamnuuceen bini'aadan uu la kulmi karo ka mamnuuceen ta ugu sii daranna ay tahayba in shakhsiyadiisii ay dhulka la dhaceen ay dhulka la galeen sharaftiisii ay baabi'iyeen ay cawradiisii dadka si live ugu soo bandhigeen inay daawadaan waqtigaasi haddaba dadka reer Japan laba nooc ay ahaayeen qaar waa kuwa ku raaxaysanayay oo iska daawan jiray qaarna waa kuwa runtii aad u dhibsaday dhibaatooyinka ninkani lagula kacayo aad ay arrintii uga dhidhiyeen aad ay waxaan xaqeen heer waxay gaadheen ay isku dayaan inay qolkaasi baadi goobaan ay soo raadiyaan si ay ninkaasi meeshaasi uga badbaadiyaan intii qolkaasi ka jabiyaan maadaama ay arkayaan ninkan inay xaaladiisu xun tahay sidii ayay sameeyeen shacabkii reer Japan ayaa kacay ninkii yacni caan gebi ahaanba dalka Japan caan ayuu ka noqday yar iyo weyn waa xaaladiisi waa la wada maqlay waxaa la bilaabay in qolkii la raadiyo yacni dawladdu waxba kama qabanayso TV-gan waa TV hab sharci u shaqeynaya ninkanna yacni qoladana TV-gu asaga ayaa doortay leeyihiin oo tartan ayaa la galay asaga ayaa doortay inuu dhibkaasi maro yacni dawladdu waxba ma odhanayso laakiin hase ahaatee shacabkii ayaa kacay meel walba ninkii waa laga raadiyey ugu dambeyn shacabkii reer Japan waxay ku guuleysteen inay ogaadaan exactly meesha uu qolkaasi ku yaal haddaba shacabkii ayaa kacay warbaahintii dalka Japan ayaa sidoo kale kacay markii haddaba howlwadanadii TV-gu arkeen inay arrintu xun tahay shacabkii ogaadeen qolkiina la damacsan yahay in loo dhaco gebigiisiba la dumiyo oo ay warbaahintii iyo ummadihii oo dhan isu soo diyaariyeen sidii qolkaasi u soo weerari lahaayeen ninkaasina loo doobi lahaa isagoo si live loo badbaadinayo ayaa waxay sameeyeen habeennimo ayay ninkii qolkii ka dhex kaxeeyeen qoladii maamulka TV-ga ninkii oo hurda ayuunbay qabteen gaadhi ay leeyihiin bay ku dhaxareeyeen waa ay la fogaadeen nasiib darro waxa uu mar kale ku soo baraarugay Nasubi asaga oo ku dhex jira qol u eg isla qolkii uu ku xareysanaan jiray tabtii oo kale gebigiisuba u yar alaabana aan u dhex oolin kaliya loo dhex dhigay waxyaabaha ku guuleystay iyo jaraa'idkii wixii ay sidii u buuxaan haddaba qolkani markii loo soo wareejiyay Nasubi waxyaabo far badan oo runtii aad u xanuun badan ayuu gudaha qolkaasi kala kulmay gaajooyin runtii xad dhaaf ah ayuu kala kulmay oo mararka qaar waxa dhici jirtay ninkii comedianka ahaa ee loogu talagalay inuu dadka ka qosliyo oo mararka qaar waxay shacabku arkayeen dadku TV-ga ka daawanayeen oo gaajo dartii la oohinaya la ilmeynaya wuxuu cunola
waxaa dhacday haddaba maalin maalmaha ka mid ah inuu ku guuleysto inuu bakhtiyaar nasiib ku helo tvgii markii uu helay runtii aad ayuu ugu farxay sababtoo ah ugu dambeyn waxau helay wuxuu isku madadaalin karo playstationkii buu soo qaaday playstationkii maadaama tv uu helay playstationkii ayuu ku ciyaari jiray muddo ayuu sidaasi ku waday si uu waqtiga isaga dhaafiyo hase ahaatee waa shakhsi gaajoonaya xaaladiisu xun tahay yacni way adkaanaysaa qof gaajoonaya yacni duruufaysan inuu playstation ciyaaro uu waqti ku qaato taasi oo keentay inuu playstationkii wixii ciyaaraya iska joojiyo uu awoodda saaro bakhtiyaar nasiibkaasi inuu ku dadaalo sidii uu u gaari lahaa meeshii loo baahnaa ee loo qabtay $9,000 si uu qolkan dhibtiisa iyo rafaadkiisa uga baxo oo xorriyad mar kale u helo oo ummadii u dhaxgalo sidii ayuu sameeyay waa uu dadaalay waqti badan ayay ku qaadatay 11 bilood kadib ugu dambeyn waxa uu ku guuleystay oo ku war helay in uu gaadhay tiradii loogu talagalay ee 9,000 waa 11 bilood oo uu ku noolaa gaajo rafaad balambal kelinimo ugu dambeyn asagoo nool oo naftii weli ku jirto ayuu ku guuleystay inuu gaadho 9,000 haddaba waqtiyada ka mid ah ninkii oo waxba warhayn oo iska hurda ayaa waxa ku warheray dabaaldeg korkiisa ka dhacaya iyo farxad alalaas waa uu yaabay waxa loo sheegay ugu dambeyn inuu ku guuleystay lagana saari doono qolkani uu ku dhex jiray markii u horeysay ayaa Nasubi waxa loo fidiyay dhar oo xidho muddo 11 bilood kadib ayuu dhar jirkiisa mar kale dib u gelinayaa oo intaasi oo bilood waa uu soo qaawanaa runtii dareen cajaa'ib ah ayay ahayd markii ugu horeysay muddo 11 bilood kadib in uu dad caadi la kulmayo ka dul qososlayaan dushiisa dharna uu xidhan yahay ninkii ayaa wadeen oo kaxeeyeen waxay geeyeen meelo aad u qurux badan meelo madadaala lagu ciyaaro waxa uu waqti helay asagoo labisan oo faraxsan inuu fuulo meelaha ay caruurtu ku ciyaaraan roller coaster yacni waqti fiican ayuu qaatay haddaba ninkii oo aad u faraxsan aad u dhoola cadaynaya waxay isiraahdeen qoladii tv-ga maamuleysay waxay arkeen in ay daawanayaan ay ninkani la socdaan 17 milyan oo qof 17 milyan oo daawadayaal ah inay si live u daawanayaan waxay isiraahdeen ninkan haddii aad iminka sidaasi xorriyadiisa aad ugu celisaan oo sidaasi ku socdo 17 milyan ayaa hawadiidin ka baxaya haddaba si ay weli u sii wadaan oo 17kaasi milyan ee qof ee daawanaya ay uga faa'iidaan welibana daawadayaal kale oo badan u helaan waxay sameeyeen indhaha ayaa ka xidhan ninkii oo faraxsan ayaa hal mar waxa uu ku soo baraarugay indhaha ku kala qaaday asaga oo qolkii ku jira oo ku xaniban qolkani haddaba doorkani lagu soo xareeyay Nasubi isla qolkii ma aha waa qol kale oo ka duwan hase ahaatee isla tabtii qolkii hore oo kala yacni gooni ah yar qalab fara badan dhex oolin kaliya waxyaabihii jaraa'idadii iyo waxyaabihii loogu talagalay ay u dhex yaalaan haddaba doorkan Nasubi waxa loo sheegay meesha uu joogay inay tahay Korea aanay ahaynba dalka Japan si dalkiisii Japan dib loogu celiyana loo baahan yahay in uu helo inuu ku guuleysto prizes badan bakhtiyaar nasiibkii dadaal fara badan samee guuleyso kadib ayaa dalkii Korea dib loogu celin doonaa oo aad xorriyadaada dib u heli doontaa hase ahaatee Nasubi arrintan waa uu ka daalay waxa wajigiisa laga dhadhasanayay in uu aad u karahay xaaladan qalbi jabna uu ka qaaday maadaama uu mar dareemay xorriyadii hamigiisana uu galiyay inuu khalaas sidaas xor ku noqday balse uu haddana ku baraarugay mar kale asagoo xabsigii ku jira waa uu yaabay waxa uu yiri oo dalka Korea hadii la yimaado Japan dib laguma noqon karo miya ilaa lagu guuleysto qiimo badan oo bakhtiyaar nasiiba sokowa doonagade ikiteikeruka halkii ayaa haddaba uga sii socotay Nasubi xaaladiisii hore dharkii ayaa laga siibay qaawanaantiisii ayuu ku soo laabtay noloshii dhibta badnayd ayuu mar kale dib ugu soo laabtay Nasubi haddaba doorkan waxa isku dayay inuu aad u dadaalo oo awoodda saaro bakhtiyaar nasiibadaasi inuu ku guuleysto si dalkiisii dib loogu celiyo waa uu dadaalay dadaal fara badan ayuu sameeyay waqti fara badan ayuu galiyay dhibaatooyin fara badan ayuu la kulmay muddo dhowr bilood oo kale ayuu meeshii ku rafaaday hase ahaatee runtii aad ayay la yaabeen oo doorkan waqti muddo kooban gudaheeda waqtigee ka filayeen inuu ku gaadho waqti ka sokeeya ayuuba ku guuleystay inuu ku gaadho tiradii loo qabtay in dalkiisii dib loogu celin doono sidii ayaa dhacday waa uu ku guuleystay waa uu gaadhay waa loo sheegay inuu ku guuleystay hase ahaatee intaasi wixii ka dambeysay Nasubi waxaa lagula kacay fal runtii aad u xanuun badan fal uu inta noloshiisa ka dhiman aanu ilaawi doonin waxaa la sameeyay markii uu ku guuleystay ee uu gaadhay prize-kii loogu talagalay dhar ayaa loo xidhay gaadhi ayaa la saaray qol kale ayaa la geeyay iyada oo laga dhigayo inuu calashaan ku soo laabtay
gudaha dalka Japan. haddaba waqtigaasi argagax iyo niyad jab tii ugu weyneyd ayuu la kulmay. waxaa lagu amray Nasubi inuu siibo gebi ahaanba dharkii uu xidhnaa. dharkii ayuu siibay, indhihii uu ka xidhnaa ayuu iska furay, dharkii uu xidhnaa ayuu gebi ahaanba iska siibay, muriya gacan ayuu ku soo laabtay. waqti yar kadib waxa uu ku war helay qolkii uu ku dhex jiray oo gebigiisiba furfurmaya, misana uu gudaha ugu jiro kumanaan qof oo hor fadhiya oo si live u daawanaya oo u sacabaynaya. Nasubi caanimo uu rabay caan wuu noqday dalka Japan, caan ayuu ka noqday. hase ahaatee marnaba ma aanu filanayn muddada 15 bilood ee uu qolkaasi xabsiga ku jiray ee uu qaawanaa wax waliba uu sameeyo in si live ah loo daawanayay. argagax ayay ku noqotay asagoo qaawan inuu arko kumanaan qof oo hortiisa fadhiya oo sacabaynaya. arrinta aniga aadka ila yaabisay ayaa waxay ahayd malaayiintan qof ee reer Japan, يعني dadkii hor fadhiyay waqtigaas hal qof oo qalbigiisa wax damqasha ay ka muuqato oo u naxa oo soo kaca oo ninkaasi wax saara ma la waayay. gabigoodiba way ku qosqoslayeen, way sacabaynayeen, way dhawaaqayeen. hase ahaatee asaga waqtigaasi argagax iyo yaab ayuu ahayd. xaaladiisu waxay ahayd mid aan la soo koobi karin, yani argagax. ninkii adigu waxa caan uu noqday muddo kadib caanimadiisii waxay u kordhisay, yani waxa uu isku dayay inuu sameeyo xusuus qor oo buugaag qoro oo waxyaabo ka qoro dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii uu soo maray muddadii 15 bilood oo xabsigaasi ku jiray. lacag fiican uu ka sameeyay. hase ahaatee ujeedadiisii ahayd inuu noqdo comedian caan ah oo yani xaaladiisu aad iyo xumayd, aad iyo runtii uga murugeysnaa wixii ku dhacay. يعني waxa la oran karaa waa mujtamac bila diin ah, mujtamac qalbigooda aan wax naxariis ku jirin, kaliya muhiimadooda ay tahay waxay u helaan madadaalo ahaan ku qosqoslaan iska daawadaan. si kasta ahaatee saaxiibayaal, qisadan waxay kamid tahay qisooyinka aniga ee soo markuu ugu la yaab ka badnaan ka sheekeeyo. halkaas ay ku dhan tahay. aad iyo aad u mahadsan tahay haddii aad ilaa intaasi oo dhan aad nala soo socoto muuqaalka la daawanisay. fadlan muuqaalka like saar, sidoo kale channelka dadweynaha aad ku cusub tahay subscribe saar. aad ayaad u mahadsantahay.